iyadoo haddaba dhibaatada fayraska corona ay socoto ayaa waxaa jira in xanuunkan uu ku badan yahay dadka bulshooyinka muhaajiriinta ah ee laga tirada badan yahay Yurub soo galay inkastoo aan ilaa hadda looga sababta dalka Norway ayaa haddaba kamid ah ee tusaale ahaan tirada guud ee dadka uu ku dhacay cudurkaasi waxa la leeyahay waa 7500 433 kamid ayaa Soomaaliya haddaba si aan xogo ogaano bal arrintan sida ku timi waxa khadka Skype-ka ku jirta Dr. Ayaan Bashiir Sheekh Maxamed oo dhakhtarada cudurrada guud ka hawlgasha isbitaalka weyn ee Oslo Dr. Ayaan soo dhawow bal nooga waran ayaanay marka hore xaaladda guud ee Soomaalida iyo sida cudurkan u saameeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما تنتهين مثل هاي سيدا جود وسامي dadka kale iyaga xanuunka kaga badan marka loo fiiriyo ajaanibta kale xataa guud ahaan wixii ajaanib ku dhacay xanuunka waa 7384 qof 453 kamida waa Soomaali cidda ku xigta ee hadee qaybta labaad ee uu saameeyay waa Baakistanta oo 117 ah 117 marka way ku muujinaysaa in Soomaalida in aad uga badan ay saameynayso in badan oo kamid ahna in xanuunka kaliya laga helo ma dhakhaatiir la dhigay oo muxuu ahay hospitaalka Oslo ugu wadanka Norway baan ka jeedaa ugu weyn oo qarka Oslo saaran yaan ka shaqeeya oo aad hadee muxuu ahay la arkaya lana isweydaar cilmiga information is weydaarsan hospitaalada kala duwan lana dareemaya hadee inay Soomaalidu ku badan yihiin runtii waxa la xanuunsanaya waan gartay marka Dr. Ayaan marka sidaa u eegto oo tirada aad u badan tahay dadkii kale ka badan yihiin maxaa u sababa ayaad maalinaysaa doctor والله way adagtaa in hadee lama dhihi karo muxuu ahay sababtaas jirta oo hadhowtadii marka xanuunkan laga baxo waa in si fiican hadee muxuu ahay baaritaan loo sameeyo laakiin guud ahaan waa muxuu ahay anigu waxaan rabaa inaan xoog saaro horta shaqaalaha waxay ka shaqeeyaan hospitaalada caafimaadka laga shaqeeyo oo dadkii xanuunsanaabaan hadee maalin walba aan muxuu ahay lagu dhex jiraa tagaasi iyo muxuu ahay baabuuro iyo basasna way wadaan Soomaalida oo hadee dad badan ay sidaa darteed ugu dhex jiriyeen dukaamiyo marka shaqooyinkoodu waa shaqooyin bulshada aad ugu dhex jira ayna is soo waabi karin midda kalena markii hore waxay ay ila tahay inayna aad uga ay dhaxsaneen dadka muhiimadda kala fogaanshaha Soomaalida kali ana kuma eedeysnay bulshada guud bay ahayd markii dambe lagu baraarugay muxuu ahay namaradu hadda ay aad u yaraadeen waan gartay maxaad kula talinaysaa dadka Soomaaliyeed ee Norway jooga adoo soo koobaya